الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سولوا على دمانتين waxaan ku guda jirnay casharaantii aan ku qaadan jirnay higada luqada carabiga, gaar ahaan waxaan ku jirnay al-huruf as-saakina, xurufta reeban. waa cashirkii u dambeeyay xurufta reeban aan ka qaadano. waxaan ku saabsanaan doonaa haddii Allah wada loo ogolaado jumalun mukawwana, jumlooyin ka kooban min ahrufin saakina, xuruf reeban, wa ahrufin maftuuha iyo kuwa kala kor dhigan, wa ahrufin maksuura iyo kuwa kala hoos dhigan, wa ahrufin madmuuma iyo xuruf kala gudin. macna waxa ka wadaa jumlooyin waxaan keenayaa intii qawaacida soo dhiganayba, yani waxa weeyaan ay ku guda jiraan saddexdii xarako, hadday tahay kordhig, hadday tahay hoos dhig, hadday tahay gudaal, xuruf wata baa ku jira, xuruf reebnin wataana waa ku jiraan. bal jumlooyinka ayaynu ku gabagabeynaynaa duruustii ku saabsaneed xurufta reeban. waayahay halkan ayaan sabuurada buuxinayaa, bal sidaa u fiiri hadda. cajiib, warka intaa leeg wuxuu ka kooban yahay uun jumlooyin kordhig, hoos dhig, gudaal iyo reebnin keliya. inaan la inta qalinka cas ku qoran way reeban tahay, waxa kalena way xarakaysan yihiin bas, ama kordhiga wataan ama hoos dhiga wataan ama gudaal wataan. waynu aqrinaynaa marka. waxa weeyaan reebninka waxaa lagaa doonayaa duruustii hore haddii aad si fiican usoo qaadatay, cashirkan aad ayaad iskugu hawli doontaa, sababtoo ah horaan kugu sheegay oo aanu qaacidadeeda waxay ku shaqaysaa had iyo jeer in kor loo koro oo horay loo socdo. horaa loo soconaya ma maqli jirtay? marka lama rabo xabad xabad keliya waad soo akhriday, sida amsakadan oo kale wayna soo martay waan filayaa. yani waxa weeyaan kelmadda biyadihiya iyaduna markaan hoos dhiga marayni ayayna soo martay, hoos dhiga markaan marayni. kutubahu markaan gudaalka maraynayna soo martay iyadoo weliba sidaa ayaan filayaa. sidoo kale axdaradani yani waxa weeyaan reebninka iyadoo keliyadeeda nagu soo martay. jalasadaas iyo wajalasa kelmadaas waxaa nagu soo martay, iyo dakhalada iyo kordhigi bay nagu soo martay. okaa kelidiina wuxuu haysata lama doonayo. way carabiga ma yani waxa weeyaan kelmad keliya oo meel iskaga qoran ba macna faa'iideysa. hal waxa faa'iideysa ma jirto. haddaad luqada carabiga akhriyayso kitaab ku qoran, iyo haddaad kitaabkii Ilaahay akhriyayso oo jumlooyin sidan oo kale u qoran weeyaan, kitaabkii Ilaahay sidan uu qoran. yani waxa weeyaan hawlaha inta leeg weeyaan, maaha kelmad yar oo meel ku engegan geelin inta laga durka hadana xabad yar oo kale meel lagu dhigayo maaha. waxa waa lagu tababarayay uune. yani waxyaalaha la yaab kale waxa weeyaan macallimiinta laftarkooda way ka yara gaabiyaan oo ardayga xabad xabadaas ay ugu dhigayaan bay ugu dhameeyaan. may arrintaa waa laga fiican yahay ustaad, Allah ku barakeeyo. haddii uu qofku isagu daraasaynayana xabad xabadaas u dhiganayo unbu qawaacidii oo dhan wada dhigtaa, dabadeedna hadhow aakhirka wuxuu gaadhaa un isagoo waxba akhrin karayn baa sifirkii u jiro. lama rabo sidaa. kolba wixii aad dhigatay, qaacidadii aad dhigatay haddii la badiyo waanaad garan kartaa. hanaara ugu socda haddaba. qaacidadeenna waxay ahayd labada, yani waxa weeyaan midna xarakaysan yahay midna reeban yahay, isku qabo, inta kalena xarakadu ku akhri. hamsadii miimka isku reebada am, siinka kordhig sa, isku dar am sa, kaafka kordhig ka, isku dar am sa ka. hamsadii shinka isku reeb ash, rada kordhig ra, isku dar ash ra, fada gud fu, isku dar ashrafu, amsaka ashrafu. labalabaan isku darana insha Allah, labalabaan isku darana. amsaka ashrafu wa la wala da walada hu waladahu bi ya biya di biyadi hi biyadihi waladahu biyadihi wa al ba ba sa hu albasahu saw. kordhig baa ka horreeya markasta, sida xurufta kale isku reeb waa isku reebaya, lama jiidiyo mar hadduu kordhig ka horreeyo. saw ba hu thawbahu wa albasahu thawbahu wa jaw ra wajaw ra, isku dar wajawra ba wajawraba hu wajawrabahu wa albasahu thawbahu wajawrabahu wa ata wa ata'a ma wa at'ama hu wa at'amahu wa ashra وأشرب وأشرب هو
وأشربه لا با لبا نا لبنا هو لبنه وأطعمه وأشربه لبنه وأحض وأحضر وأحضر لا هو له كتب كتب هو كتبه وأحضر له كتبه وورق وورق هو وورقه وق لا وقل ما وقلم هو وقلمه وأركب وأركب هو وأركبه مع أختي هي أخته بثينة بثينة عرب عربة فراسي هي فراسه دخل أشرف فصله وجلس فوق مقعد هي مقعده وأنصت بس كده ظهرنا إن هنون كمك لشرح درسي هي درسه وبعد أن أنت المرة بلا وضع آخرنا اللي هو لما حرف أذكر ربنا قرأ هو قرأه وكتب هو وكتبه خرج من فصله ولحق برفقته وكا وهمزدي ماركسا هسكو جيدين يا هدين ما حد يعرف الا هدين وهمزديو waxa loogu rabaya sidii caadiga xurufta kale loogu reebay ya way liyakula معهم حرف كان عسيات ثم ما دام سكوسد معهم خبزه هو خبزه وعنب هو وعنبه وليلعب معهم بكراتهم وأنا بقى دالينيو انت زودي اك سيده واحد وقتا عرض يوم الله كبركيه ان ما جيرو قف ان دالين
waxa weeyaan dhibtoonayn adduunka ma jiro laakiin waa la kala sabir badan yahay waxaan xasuustaa laba nin baa yani ku marmay anaa kaa sabir badan iyo anaa kaa sabir badan kadibna yani waxa weeyaan mid baa wuxuu dalbay in mid kastaba afka farta loo geliyo la qaniino kadibna ka hor cabaada yaa dee sabir yar oo aan geesi ahayn kadibna waa la isku hayay de mid baa cabaado yidhi ariga sida haddaba wuxuu yidhi wallaahi haddaad sii hayn lahayd darfata cayn hal sikin haddaad sii yar joogi lahayd waan cabaadi lahay iga sidaa baan ka odhan lahay laakiin waa intaa yar waan adkaysanayo ma inaan meesha macaansanayo waan adkaysanayo marka waa caynkaas moogta waa la daalayaa laakiin waa la sabrayaa sheekh marka hala sabro insha allahu marka dambe ayaad ku raaxaysan doonta waayahay fiiri sidii caadadeenno ahayd inagoona dan ka lahayn luqa alcarabiya inaynu imika micnayno oo kalimaadka macnahooga aad barato laakiin waxaanu yara micnayn jirnay darsi walba kaan ku khatilno sababtaan uga jeednina waxay ahayd yani luqa alcarabiya sida hodanka u tahay inaad ogaato hadda kalimaadka reeban xurufta reeban iyo xurufta xarakooyinkiisita intaasoo keliya kelmadahana ka kooban yihiin haddana macno idil ayay sameeyeen alada fiiri waxaa lagu leeyahay nin ashraf la ydhaa wuxuu qabtay wiilkiisiibuu gacanta qabtay haye wuxuu u xidhay yani dharkiisii iyo sharaabadadiisi war waa soomaalidii aan canaananayn malaaniyow kani markaasaa wuxuu yani waxa weeyaan quudiyo ducuntu siiyey wuxuu cabsiiyey caanihiisi wuxuu u keenay kadibna uu soo diyaariyey kutubtiisii iyo waxa weeyaan waraaqihiisii iyo qalimaantiisii iskuulkiibu ku wadaa ma garanaysaa yani waxa weeyaan kadibna wuxuu korsiiyey isagii walaashii oo buthayna la odhan jiray faraskiisa yani buurigiisa ayuu korsiiyey oo ku qaado ninkii ashraf la odhan jiray dee waa la geeyey madrasadii wuxuu galay fasalkiisi dabeedna wuxuu ku fadhiistay maqcadkiisi yani meeshii makaanul juluuskiisi meeshii uu ku fadhiisanayay kursigiisiibuu isaga fadhiistay wuxuu yani waxa weeyaan u dhakar hareeciyo si fiican u dhegaystay cashirkii waxa weeyaan cashirkiisa sharaxaadiisi macalinku sharaxay kadibna wuu akhriyay cashirkii oo uu qoray intaa kadibna fasalkiibu isaga soo baxay wuxuu soo haleelo kadaba yimidi saaxiibadiibu soo gaaray si uu ula cuno yani roodhidooda khubsiga laxooda iyo roodhidii xasalar iyo waxa weeyaan yani cinabkooga si uu ula cuno una la cayaaray kubaddoodiibu kula ciyaaray bal fiir ilaahi ku dhari yani waa war dhan dalkaayara gurigii intaan ka soo saarnay walaashii yani intaan wax soo cunsiinay isagii baan doonaya intaan wax soo cunsiinay kutubtiisa qalbaantiisa soo diyaarnay isagii walaashii baan faraska gurigiisa soo saarnay fasalkiisii galay fadhiistay darsigii dhegaystay cashirkii qoray yani akhriyey fasalkii haddana ka soo baxay saaxiibadii soo gaadhay wax la cunay la ciyaaray warka intaa leegi yani waa bal ka waran luqa alcarabiya marka loo dhammaystiro casharaanta noo soo socdaan maxay samayn karaysaa dee wax ilaahay og yahay baa la odhan jiray xilligaasoo kale wax walba alla oge laakiin shaygaasaa la weyneynaya waayahay darsigeenna caawa horta intan ayuu iskaga egyahay waxa lagaa doonaya waxay tahay un sheekhow hakadada yar markaysa waxa yar hakad baa loo yaqaana carabiga af soomaaliga carabigana faasila la hakad baa la koma la madaafka qalaad marka hakadka yar waxaa loo adeegsadaa yani waxa weeyaan jumlooyinka macnuhu ka dhaxeeyo laakiin de mid walba macnaheegii iska dhamaystirmay laakiin xidhiidhu ka dhaxeeyo dhexdooda la dhigdhigaa markuu macnuhu dhamaystirmana dhibicdaar baa la dhigaa insha allah waan qaadan doonaa calaamaatu tarqiimka wax loo yaqaano laakiin waxaan uga jeedaa hadda waxaan ugu soo qoray duruusta hore kumaynu qori jirin halkaa inaad ku istaagto markaad akhriyaysaa la doonaya hadda tan qaacidadii ku kici tanna qaacidadii ku kici isku yardar tanna qaacidadii ku kici saddexdan isku yardar tanna qaacidadii ku kici afartan isku yardar afartaa markaad isku darto bes iska daa haroosii soco afartaa kale haddana isku dar hakadka kala gaadh hakadka kale haddana gaadh intaa isku dar intaa kale haddana isku dar eeg hakadka haba kugu dheeraada mararka qaar sida iminkoo kale iyo markaasoo kale iyo eeg aad bay kugu dheertahay yani joogsigaa laga gaadhayo intaba akhri isku yar hawlo yani waxa weeyaan mar kasta hakadkaa ku istaagi halka u dambaysa aad ka soo gaadhayso marka u dambaysana inaad sidan u akhrin karto adigoo hakadkii ku istaagay oo yani waxa weeyaan aan qaacidadii ku kicinayn isku day oo saa tirahdo amsaka ashrafu waladahu biyadihi wa albasahu thawbahu wa jawrabahu wa at'amahu wa ashrabahu labanahu wa ahdara lahu kutubahu wa waraqahu wa qalamahu وأركبه مع أخته بثينة عربة فرسه دخل أشرف فصله وجلس فوق مقعده وأنصت لشرح درسه
وبعد أن قرأه وكتبه خرج من فصله ولحق برفقته ليأكل معهم خبزه وعنبه وليلعب معهم بكرتهم. إك هدي أتكوك عصمت كستا قاعدة خطوات هاي سفايدة الحمد لله. أمسك أشرف ولده بيده وألبسه ثوبه وجوربه صادد وآخر كرسه حتى مركز قاعدة كوك عيسى كدي بهالنقطة خرطة واضحة يساوي اللي الربي الحمد لله. لكن ده الربي حي معاش كنا قاعد ما درك تعضو يعني قف انتو حول السوق يبسلو كدبنا يعني سي يعني إيبية أو كو قناعسن رئيس المال كو كلي ما درك تعضو أو نل الرئيس المال كل ما كاس السنة ياك إيبيني كي لهاور معاش يعني shaqayso oo $100 baa soo siisay aniga 100 ka tanaga sida hayeen war naga la takuura oo ka 100 ka qaatay aragtay ma jiro hadan oreeyay sidii odagii reer Burcaan waxaan uga jeedaa in dhaqdhaqaaqa muxuu yiri oday reer Burcaan yani waxa weeyaan halkiisa ka siibsan jiray weelada xoolo dib u si xaraashi jiray teedna wuxuu siin jiray mar walba xoolihii soo siistay raysimaalka aan ka hooseys mar walba khasaari markaas la guurinay maxaa uga jeedaa arrinkan oo shaqada caana moogtay markaas wuxuu yiri adeer yani dhaqdhaqaaqu ma uga jeedaa yaa وقال دقائق iyo waxa way xarakaadka erigaas uga cabir xarakaadku ma uga jeedaa marka hadan xarakaadka uga jeedin oo aad macaash doonayso waxa weeyaan meel kasto hakad ka yar yaalo waa inaad ku istaagi kartaa marka ugu dambaysa xataa isku day war soo celi anaga oo sariin waxa weeyaan dhageyso waa inaad ku akhrin kartaa xataa marka dambe sideeni halkaas oo horeysa la halka u dambaysa oo saasoo kala dhigi kartaa amr ayaa war balistiji أمسك أشرف ولده بيده وألبسه ثوبه وجربه وأطعمه وأشربه لبنه وأحضر له كتبه ورقه وقلمه وأركبه مع أخته بثانة عربة فرسه دخل أشرف فصله وجلس فوق مقعده وأنصت لشرح درسه وبعد أن قرأه وكتبه خرج من فصله ولحق برفقته ليأكل معهم خبزه وعنبه وليلعب معهم بكرته مركزة نقص كوانك خبنجر هير كادت سوقر دوفيد باتاي لكن كل وقت ويرات كانت تاسي لكن هكذا كاسي وأنا المركز تكوي استيكرتها وحن دوني يقاف كاسو حنقو آخريا همدا دوني عالي نقط وهير كانت سوق gaari karto waxa weeyaan average hadiya jeer yaani dadku waxay haystaan bay ku farxaan lama rabo taas xagga adduunyada waxaad haysata lagu farxaa laakiin xagga cilmiga aqoonta marka laga hadlo intaad haysan lagu ma farxo inta ka dhiman baa la raadiyaa imika tusaalaan amsa ka dad akhrin karto allah ila akhriski waan bartay dhiin waraacba ga dhiman oo maxay ga dhiman inta isku dar karayo way ka soo tadriibaadka ayaa inuu gudbaynaa tadriibaadka caawu waxay ahaan doonaan warka inta leeg baan keenaya waan ka yareeyay sidoo kale suurada ma buuxinin wada akhriyaysa wax kale ma qabanaysid bas wada akhriyaysa wax isku darkan waxaad ku xisaabtamaysaa line-kaas uma isku daraysa hadana line-ka kale wax kale qaban bas mar labaad waxaan ku sameeyay tadriibka qaybtiisa labaad isla sidoo kale ayaa waxaan keenay jumlooyin noocan laakiin si hawsha bal kugu yara badato wala isdhibayaa sheekha way waxaan ka qaaday sukuunkii ayaan ka qaaday حرف كستو عس marka reebnin bad u niyoonaysa marka akhriiso ama buugaaga qalinka inta soo diyaarsatay dib u qoraysayo xaraf kasto qalinka casan ku qoray reebnin baad saaraysa kadibna aad akhriiso wax kale ma qabanaysa halka line isku dari karto hadana line kale isku dari karto hadana line kale isku dari karto mid walba marka qaacidada ku kiciso ayaad isku day doontaa hadii Allah u dilo kala way tadriibka qaybta saddexaad waxaanu dhihi jirnay uktub ma yumla alayka waxaan lagu yeedinayo qor marka waxa lagu yeedinayo waxaan noqonaysa bariiqatin ashwaa'iyya qaab isku dhexdaasan marka hore lagu yeediyo kalimaadkii ku qornaa sawirada ee aynu qaadanay ayaa kulba mid la doono lagu soo qabanaya marka dambana waxa lagu yeedinaya bariiqatin murattaba qaab tartiibsan waxa badi u horeysay la xabadi u dambeysay ayaa lagu yeedinaya waayahay waxaan oran jirnay cid sidan ku caawisa hadii aad weydo waxaad ku kaaftoomi doontaa labada qaybood ee hore insha Allah way ku anfici doonaa waxaan rajaynayaa darsigan aad ka wada faa'iideysateen gaarsi cid kastoo isleedin waa waafacaya. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.